بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. اللهم يا معلم آدم علمنا، ويا مفهم سليمان فهمنا، ويا موتي لقمان الحكمة آتنا الحكمة وفصل الخطاب. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، واجعل عملي خالصا لوجهك الكريم يا رحمن يا رحيم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم صل على محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. walaalayaal ilaahay baa mahad iska leh mar walba axadkii inoo suuro geliyey kulankan caawa inaynu isugu nimaadno. ilaahay waxaan ka baryayaa subxaanahu wa tacaala inuu carabkayga iyo maskaxdayda soo mariyo sida xaqa ah ee sawaabka ah ee uu raalli ka yahay. ilaahay waxaan ka baryaynaa inuu cidda erayga odhanaysa iyo cidda lagu odhanayo labadaba ilaahay ku anfaco fi lxayaati wa bacda almamaat. ilaahay waxaynu ka baryaynaa inuu inoo fudaydiyo wakhtigan kooban aynu haysanno, inoona barakeeyo miisaanka xasanaadka aakhiro inoogu cusleeyo baan ilaahay ka baryaynaa. allahuma salli calaa muxamed. kelmaddu sida iclaamku waa ku baxay waxay ku saabsan tahay jannada, nicmada dhex taalla iyo dadka jannada gelaya tilmaamaha ay leeyihiin. qofka muuminka ahi yoolkiisu uu dunida markuu joogo u halgamayo waa inuu ilaahayna naar ka badbaadiyo, jannana ilaahay uu siiyo. waa waxa aynu iminka u soo galnay masaajidka, salaada maqrib u tukannay, ilaahay inuu noogu dembi dhaafo oo janno nagu siiyaynu doonaynaa. sidaa awgeed soomaalidu waxay tidhaahdaa waxa faraska loogu dhuftaa shaabuugga waa orodka ha badiyo ha sii dheereeyo. qofkii muuminka ah ee miyirka qabay ee qumanaa ee isagu dadaalayay intii itaalkiisa ah ilaahay jannadiisa siduu ku heli lahaa dadaalayay, marka looga sii sheekeeyo oo looga warramo jannada iyo waxa dhex yaalla, iimaankiisii iimaan baa ugu kordhaya, dadaalkii dadaal buu ku kordhinayaa, cibaadadii waa u sii macaanaanaysaa, ducadiina wuu labanlaabayaa. sidaa awgeed haddii la yidhaahdo jannadaa 8 albaaba ha laga sheekeeyo, dee idinkoo dhan waa garanaysaan inaanay ku filnayn wakhtigan kooban ee bayna cishaa'inka ah. laakiin wuxuun baynu ka sheegaynaa aayadaha qur-aanka iyo xadiidka nebiga ka mid ah sala allahu calayhi wasalam. ujeeddaduna waxa weeye wadakir fa ina dikraa tanfacu lmu'miniin. naftayda inaan xusuusiyo waa qodobka ugu muhiimsan en kelmadda inaynu jeedinnaba sababay. anigaa cid walba uga baahi badan naftayda inaan xusuusiyo u sheego, kadibna idinka idinla wadaago. ilaahay subxaanahu wa tacaala kelmaddatan hayna waafajiya sida xaqa ahe ilaa 20 qodob baynu taaban doonnaa oo qur-aan iyo xadiid isugu jira kanu jannada tilmaamayno taqriiban. alle subxaanahu wa tacaala wuxuu u diyaariyey dadka ahlu taacadiisa ah iyo isaga adeeca, mu'miniinta isaga rumaysan ee raacsan ee ka dambaysa, jannaad buu alla u diyaariyey. jannooyinkaasoo waa weyn, cadiimatu litisaac, aad u balballaadhan, aad u waaweyn ayaa ilaahay u diyaariyey subxaanahu wa tacaala. kahiiratu lkhayraat, khayrkeeduna aad u badan yahay baa ilaahay u diyaariyey. markuu sidaa jannadii u goglo u diyaariyey buu innagana wuxuu ilaahay ina farayaa inaynu fadhiga ka kacno u beratanno oo loo kala dheereeyo acmaasha saalixaadka ah sida qofku uu hoy uga dhigan lahaa aliimaanu waalcamalu asaalix. fii suurati aali cimraan iyo fii suurati alxadiid alle wuxuu leeyahay subxaanah wasaaricuu ilaa makfiratin min rabbikum
وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين وحدو بريتنتانو وكلا ديريسان إلى مغفرة دنب داف ربي حقي وديريا ابن عباس وحكوف السري مغفرة داس دنب داف كاس إلى الإسلام إسلام كأي قيبه سكال دوان كدقن كلاقو دقميو وكلا ديريا عكرمة علي بن أبي طالب waxay ku fasireen ilaa adaa'i alfaraa'id waajibaadka iyo xilka idin saaran gudashadooda u kala dheereeyo u baratama oo yaan la idinku yeelan farad iyo waajib ilaahay idin saaray dahaak wuxuu ku fasiray jihaadka u dheereeya abul aaliyat ar-riyaahi wuxuu ku fasiray hijrada u dheereeya ikhtilaafu tanawuc waa la yiraahdaa fi ilmi tafsiir تفاسير تعين كاسو كلا ممدة وحلوغة شيداون إسلام كايو شرائع دا أوليمد وديريا دن بداف بات كوهي ليسان دن بداف كاس ربي حقي بوكا إيمانيا إيو چنو بل عيديا بلد كيدو سماوات كان يا أرلضا نولا يسكو في ديي بيليجيه سماوات كاي أرلضا تضبضا دول إيا تضبضا عر وصدا اللي يسكو في ديي ayaa jannadaasu ballaceeda iyo dhirirkeeduba meelahaas ku fadhiya fi surati al-hadid sabiqu ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha ka'ardi as-samaa wal ard u'iddat lil ladina amanu billahi wa rusulihi suuradaas waxay qeexaysaa jannada inta ballaceedu leegyahay ee sida uu ajaa'ib kale cid loo diyaariyay ee Allah ugu talagalay inay ku raaxaysato أعدت للذين آمنوا بالله ورسله وحلو دياريي كو إلهي رمي سبحانه وتعالى رسوشي سنة رمي مركاسا إلهي وحوت الماما يا ديق ذا وين وبحيي إنا ديق سهلا أنا يهين ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم وديق أدوين عد إلهي أنا هين وبحين كرتانا مجرد أسأل الله أن يجعلنا من أهلها نبي صلوات الله والسلام عليه حديث صحيح هذا صحابة وحي ويديين أخبرنا عن الجنة جنة نغور رسولك إلهيو رسولك وحكو جوابي صلى الله عليه وسلم لبنة من ذهب ولبنة من فضة وحي كسما يسنتهي لبنة من ذهب لبنة يدغح يتشاشور ذهبة يمد فضة معدن تقالي يعد ayay ka samaysan tahay dhulkeeda waxa ku goglanaya Allah waa miskul adfar waa miskiga nooca ugu udgoon ayaa ku goglanaya Allah ilaahay ku udgiye subhanahu wa ta'ala hasbaaha yaqutun wa lu'lu qurur hadiya ciideedu waa jawharta ta ugu qaalisan iyo lulka rasuulku leeyahay salawaatullaahi wa salaamu alayhi man dakhalaha la yamut qofkii hoy Allah uga dhigo gala dib u dhiman maayo geeridii uu dunida ka soo geeriyooday geeri dambe ma jirto hadduu galo laa yamuutu wa yan'am uu nicmaysanayaaye ma geeriyoonayo laa yab'as ma dhibaatoonayo laa yabla shabaabu dhalinyaranimadiisu ma dhammaanayso isbedeli mayso walaa yabla thiyaabu maryihiisu ma idlaanayaan waa nicmo insaanka ilaahay siiyey نعموينك أقوى وين بكمتها في صحيح البخاري ومسلم وحاكسوا من حديث أبي هريرة وحنبي قلت المامي صلى الله عليه وسلم سديد الباب يتشنده الباب ولبا انتو يسوتشروا وكاسو النبي يقول صلى الله عليه وسلم إنما بين المصراعين من مصاريع الجنة شنده الباب ده لبدا فرددود انت أودا حيسا مسافة يسوتشران كما بين مكة وحمير مكة هي حمير انت يسوتشران وكلوي حمير وبلد في اليمن بل اليمن هي مكة كم كيلومتر كمنان كيلومتر باود حيس هل كي الباب لبدي سفر دادود انت سيسوتشران وحا ايمان دونتا مالين ضدك قليا اي بوحين دونان وعيد يومي دونتو اسأل الله يجعلنا من اهلها تسا ايمان دونتو النبي يقول صلوات الله والسلام عليه